Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ismidaamin ah oo ka dhacay isgoyska Ceelgaabta iridda laga galo madaxtooyada Soomaaliya ee caasimadda Muqdisho. Qaraxa oo ahaa mid xoogan waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in qaraxa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa isugu jiray askar iyo shacab, waxaana goobta uu qaraxa ka dhacay ay ahayd meel inta badan ay ku hakadaan gawaarida ka hor inta aysan gelin madaxtooyada si loo hubiyo. Waxyeelo ayaa sidoo kale soo gaadhay dad la socday iyo kuwa saarnaa mootooyinka loo yaqaano bajaajka oo wadada marayay. Laamaha ammaanka iyo kooxaha gurmadka degdega ah ayaa goobta tagay, waxa ay halkaasi ka qaadeen dhaawacyada dadkii ay waxyeelada soo gaadhay. Sidoo kalena waxa ay damiyeen dab ka kacay gaadiid qarax uu qabsaday. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan leenahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Allah bogsiyo. Waxa saaka aroortii abaaro 4 saac iyo 49 daqiiqo qarax gaari ka dhacay isgooska Ceelgaabta, gaar ahaan barta lagu jeekimo baabuurta aada dhanka madaxtooyada iyo hoteelada ka agdhow. Baabuurtaas xilligii ay u diyaar garoowayeen in la jeekimo ayaa waxaa soo dhaxgalay gaari karoon ah oo uu watay nin naftii haliga ah. Gaarigii ayaa ku qarxay barta, wuxuuna dhibaateeyay habaha ugu darnaatee hooyo sidata 2 caruur, midna 3 jir yahay midna 4 jir yahay, oo baawur ay wada saarnaayeen ku wada basbeelay hooyadii iyo 2 caruurtaaba. Dhimashada guud waxay leegtahay 8 qofood, 7 qofood oo rayid ah iyo qof kamid ah ama askari kamid ah traafikada booliiska Soomaaliyeed oo asagana u taagnaa checkpointiga inuu kala hago baawurta soo gashay midka ka baxa. Dhaawacuna wuxuu gaarayaa 9 qofood. Waxaa jiri kara dad ay la carareen eheladooda ama baawurta ka agdhoweed xilliga uu qarax dhacay, laakiin inta booliiska Soomaaliyeed uu goobta ugu yimid oo xaqiijiyay waa 9 qof. Waxaana xiriir la sameynay isbitaalada oo ayagana noo soo gudbin doona goordhow riboodka asagoo dhameystiran dib ay idinka soo siin doonaa. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ayaan uga tacsiyeenaynaa, sababtoo ah waxa loo socdo ma ahan askari, ma ahan xarun dawlo, ma ahan meel gaar u ah dawlo, waxa halkan ku basbeelay waa hooyo sidatay 2 caruur oo u socotay MCH-ka dhabarkayga ah oo u socotay talaal ayaa goobta ku dhintay. Kuwaas maxaa loo aaneyn karaa? Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed baraaruga iskana ilaalsha cadowga, ammaankiina idinka sugta. Ammaanka ma ka mid aha waxyaabaha laga gorgortamo. Bulshada Soomaaliyeedna waxaan uga digaynaa inaysan ka gorgortamin ammaankooda oo ayaga ay sugtaan. ciidanka booliiska Soomaaliyeedna soo siiyaan xogaha ay hayaan. Insha Allah ma ahan geeridan goobta ka timid mid qusaynaysa dawlad gaara ama qof gaara, waa taasiir qusaysa ummadda Soomaaliyeed. Sababtoo ah hooyo 2 caruur ninkii ku basbeeliyalka uma socdo qof gaara.